markasta waa xanuunsadaa walaalkeen waa u xanuunsadaa aabbe waa u xanuunsadaa hooyo la-aanta naftarkeeda xanuun waa idana yaraanteeda xanuun badan waa soo mar oo hooyo la-aan oo aabba la-aan oo walaal la-aan waa muuqaal xanuun badan oo noogu bilowday uur ku taalo ooyin qalbi xanuun laakiin marka gunta muuqaalka aad gaarto waxaad ogaanaysaa intaba inay yihiin wax wakhtigu uu keenay aabba malihi hooyo iima noolo halkii wiil oo ila dhashana aabbahay ayaa watay dadka kuwii ugu dhowaana waxay leeyihiin dad male waa wecel kuwa u naxariisto waxay leeyihiin rajo waaye hooyo aab mid ma qabto dad ma lahan waa iska qof dad la-aana waaye qalbi taabadkaas ayaa gabadhan ooyintaa iyo muruud intaa leeg baday nin kastana wecel waayay dhaayaan waalid ma lahan wax ma lahan marka waxaasaa la xalool xumaade gabdha waxaan arkaa walaalahood la joogaanoo garabkooda waysta marka ark maalin kasta waa iska ooya habeenii maalin waa iska ooya waxaan la ooya baahi ma la ooya dhaay waxaan la ooynaa waxaa waay qofka bini-aadanka walaalihiisa daysa haysana garabkiisa yoosan lahayn cidla waay mar kastaba xanuunadaasoo dhan waxaa xal ugu heli karnaa keliya muuqaalkan oo aad sheer garayso waxaana u muujin karnaa gabadhan inta xun mooye malaayiin qurux badan qalbi wanaagsan oo annaga aan ka mid nahay inay jiraan oo ka soo saari kara mugdiga amba gudcurka ilinta keeni kara iftiinka iyo familka si ay u gaarto qalbiyo farxsan qoys midaysan maalinna farxaddeeda ugu dabaaldegno muuqaalka sheergareeya hooyo iyo aabe mala dhibaneed nafaqa darro ilmaha kaa haysa waxaa dalka ku timada Al-Ihsan Nutrition Center oo ah xaruntii nafaqo ee ugu horeysay ee laga furo Muqdisho oo aad ka helayso nafaqo kasta oo qof walba uu u baahan yahay yar iyo weyn dadka macaanka qaba iyo caanaha caruurta waana wakiilka kaliya ee shirkadda caalamiga ee Abbott waxaad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiq intaa waxaa kuu dheer dhakhtarada nafaqada oo si bilaash ah kugu adeegaysa ka wax nambarka shaashada kaaga muuqda السلام الله عليكم صاحب يا سو دواده waa mar kale barnaamijkii baafinta baadigoobka umada Soomaaliyeed ee lintir adiga aadan kugu mahad celinaya saaxiibka igu xiran falowdi noo ah subscribe ka noo ah meel walba noogu xiran saaxiibada cusub nagu soo bira bishii Shacbaan way si siqaysaa saaxiibada lacag soo diray maasantiin waan na soo gaartay lacagtiina 200 waxa soo dirteen waan aragnay saaxiibada cusub lacagaha soo dira waan lacag aan ugu tala galnay qoyska tirada yar ee agoonta ah saboolka ah naafada ah ama shaqada ay ka istaagtay ama baahan ee guriga iska galay maadaama bishii barakeysan Ramadan galay inaan ugu yaraan sahay ugu gadno qoysku markuu yar yahay 3 qof 4 qof uu yahay dhac $100 haddii 5-6 ay gaarayaan dhac $200 Allahu akbar Shacbaan ayaa rureynaa Shacbaan ayaa bixinaynaa haddii Ramadaan la galo inaga waxaan rabnaa inaan iska afurno ayagana la afuraan laakiin Ramadaanka anagoo afurayno inaan dhaano alla dada afurnaa jiro waxaa arkay dad lacag aruurinayo oo muxsiniina oo wanaagsan laakiin mid ka qaldan tahay oo lacagaha ay aruuriyaan 10 ka dambe Ramadaan qaybinayo Ramadaan bilowgiisa bilaabaan war maxay gashaa bishii waa dhamaatay qof intaas baahna 10 ka dambe maxay u gashaa walba iidahan u siiya taas soo marka annaga maalinta koow ee Ramadaan doo dhasho waxaan qaybinayna malaan lacagaha waa dhiibnay lacagta soo dhiibtana waxba ka jari mayno inaan annaga transportation keena iyo baawraac iyo dhidid iyo waqti aan ku darno maahane sidaa u keentay aanu bixinaynaa waana mid anaga aan ballan qaadnay saaxiibayaal nagu soo biira lambarada hoos ku qoran akoonada ayaad lacag soo diri kartaan soo dhow walaashay xaaladda aad u xanuun iyo murug badan tahay waa la socda aniga laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeedna inay maanta nala dhigeystaan qisada noloshaada xanuunka badan ee koriinshaha ka soo bilaabatay ilaa iyo maanta oo wili aad qalbi gubanayso magacaaga dhameystiran halka iga soo booqatay magacayga ayaan Faarax Cumar magacaaga wali markale ayaan Faarax Cumar waxaa marti ayaan Faarax Cumar waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaaliyeed ee lintir intee degan tahay intee naga soo booqatayaan degmada Daynila degan tahay meeqa sana jirtaa 27 sana jirtaa waayahay yaa kaa maqan oo aad barnaamijka baafinta u timid oo aad baadigoobaysa aabe iyo walaalkay aabaha adigu ku dhalay aabaha magaciisa nagu cilmi kale Faarax Cumar Xuseen naanis muu lahaa haye naanistiisa waxay ahayd Faarax Qusaar walaalkaana walaalkay waxaan la dhahaa Maxamed Khadar aabahana waa weysay walaalkaana waa weysay yaa kaloo kula jooga markaad oo familkaaga ah hooyo aabe hooyo
hooyada inuu yar hooyo waa dhimatay yaa familkaagu haystaa marka abtiyaasha abtiyaashaa waa gartay maxaa weyse maxaa dhacay nin waalidkiisa ka maqan oo walaalkiisa la joogin karbaxisanin hooyadaa way dhimatay walaalkaa ma kula joogo walaashaa ma kula joogto aabbaha meel kuma ogid hooyaday gabar kale ma dhan wiilkaas bas adduunkii la dhashay oo la jooga halka wiil oo kula shaabaan oo maqan yihiin halka wiil oo la shaabaan oo maqan yihiin hadda keliya tahay waayahay waxaan kaa rabaa adeerada mataqaanaa adeerada ma aqaan maxaa dhacay sabab adeeraday aabbahay baduu maqan yahay adeeraday abtiyaashay soo korsadeen ani abtikina uu dhintay abtiyaashay kale abti kale joogo aabbaha iyo hooyada waxay isku dhaleen adig iyo wiil bas yani waxaa u fahma aabbaa wiilkii la maqan qabiilkaagaa waay qabiilkii waxaa laigu sheegay ashraafin waxaa laigu sheegay ashraafataa lagu yiri hooyadaana hooyada dirwa hooyadaana dir waay 27 sanaa jirtaa saa ii sheegtay meeqa jira kugu dambeysay aabbaha wallaahi anoo yaraa igu dambeysay mar horaan igu dambeysay ma xasuusta laakiin hadda hooyo aabba intay is guursadeen wallaahi waxaas dhan wax ii faahfaahaya ma arkin oo intay isku guursadeen isaan waxay dhaa ma arkin aabbaha intay tuhunsan tahay inuu jiro marka lagu jiraa Ethiopia doola waa isku aan dambeysay dadka marka aad sheekeysanaysaan oo aad ku tiraahdo ashraafaan ahay ma ku weydiiyaan ashraaf yaa ka tahay aabbaha aaw su-aalaas ma lagu weydiiyaa dadka waxbay ma weydiiya waa leeyahay dad ma lahan nin kasta dadka dhan waxay leeyihin dad ma lahan waalid ma lahan weligeed waalidkadeeda umaanay ma arkin waayo balaan ani ilmahaygii odagayga basaas la joogno nin kastana wacel waayay dhaayaan waalid ma lahan wax ma lahan marka waxaasaa la xalool xumaada gabdha waxaan arkaa walaalahood la joogaanoo garabkooda waa marka ark maalin kasta waa iska ooya habeenii maalin waa iska ooya waxaan la ooya baahi ma la ooya dhaay waxaan la ooynaa waxaa qofka bini-aadanka walaalihiisa daysa haysan garabkiisa yuusan lahayn cidla waay mar kastaba maxay sababta ay tahay marka maxay ku dhahayaan maxaa sababa waxaa sababa waxaa waa keligii a joogmo walaal mali walaalka qofkii dhaa walaalka aaw walaasha aaw nin kastoo inaa hooyada way dhimato walaal malihi walaalkii waa iga maqanya dad haddaan babaafiyan weydiy waxaa lileeyahay dadkaas ay kaa tageen wax ku rabo ma lahan nin kastoo saas way leeyahay adi inaa waca lahayn soo ma ogid oo aabba aad leedahay oo walaal aad leedahay waa ogahay dadka waxay arkaan le oo ay sheegaan maahay dadka daadheedu walaala ila dhashay yaa mar kasta waxay ku leeyihiin aaw dadkaadii walaalahaada aawe taasaa la olool xumaanaa maalin kasta la ooya waa yahay ma isku dayda inaad raadaysa marka aabe waa isku dayd baafin tana igu baafin kala ma gelin ee dadka niyadda iga jibinaya maxaa le maxaa ka baafinee iska dhaaf iga imaanaayo markasta saasaa laydhaa waxay dhahda waa guursaday ciyaala ii joogo haa ninkii aa guursatay kugu daray abtiyaashe abtige markii lagu guursanayo soo aabbaha looma baahan oo inuu ku nikaaxa looma baahan maxaa samaysa markaas wallaahi abtiyaashe lay xaliyeen ani goobtaas ma joogin guriga abtigee joogay ninkii soo doonna abtigee u sheegay abtigii ninkii odayaashii oo wiilka dhaleen abtigii lela xiriirin abtigee la xaliyay haddana abtigii uu dhintay laakiin abtiyaal kalaa nool kheyr alaasi ay kan laakiin dareen ahaan waa xanuunsata markii aabba lagu weydiyo aabba la waaye mar kasta waa xanuunsadaa walaalkeen waa u xanuunsadaa aabbe waa u xanuunsadaa hooy la-aanta naftarkeeda xanuun waa idana yaraanteeda xanuun badan waa soo mar oo hooy la-aan
oo aabba la-aan eh oo walaal la-aan eh. marka si kasta gabadha hadday guursato oo reer ay leedahay oo ilmo dhasho, alxamdulilah ilmo ilaahi waa i siiyey oo ilmo dhasho, mar kastaba booskii walaaltinimo, booskii aabbanimo, booskii hooyanimo cid kuu buuxin karta malaha, cid kuu buuxin karta malaha booskaas. ka xunnahay dadkan inkaaran ee ku dhahayo wacalaa tahay maaragtay dadkaaga lama yaqaano maxay yihiin, maxay ku yihiin? waxay yihiin malaha dadadoo waa darisaa tihiin? dad badan waa adiga, dadaan inta kusoo koobi karaa intaan ku sheegi karin oo garabkeyga ah. mar kastaba markaan yaraa dhegeyga waxaasoo ku dhibci jiray oo la dhihi jiray dad ma lahan, rajo waaye, agoon waaye aa la dhihi jiray. nin kasta markuu ilaado wuxuu leeyahay dad malihid, dad malihid, dad saasaa nin kasta leegu calaali warkaas. waayahay had dad waa leedahay gabar guursatay oo ciyaal leh oo xaas leh oo xaas haatahay soo nin kuma qabo soo ciyaal ma lihid maanta family buuxada ah waa ka soo gudubtay dad ma lahan waayo dad waa kuwa kuugu dhow waa caruurtaada iyo waa haysataa laakiin still waa suuragal inaad raadiso aabbaha iyo walaalka. haddii aabba iyo walaal midkood uu nool yahay maxaad ka codsan lahayd oo fariin hawad u marsiin lahayd? waxaa wada marsiin lahaa oo fariine inay aabbahay oo ii imaado, walaalka ii imaado, taasoo fariintaasaa u marsiin lahaa. dadka soomaaliyeedna maxaa ka codsan lahayd? dadka soomaaliya waxaa ka codsanaa inay ii shirgareeyaan oo aabbahay ila raadiyaan, codkeyga meeshuu gaarayo in aabbahay iyo walaalkay la igu dhibciyo oo la ii geeyo. intaasaa ka codsanaa dadka soomaaliyeed. waayahay waxaa ii sheegtay aabbahaa in ashraaf lagugu sheegay, aabba hooyadiis, aabba walaashii, aabba eedadii, aabba saaxiibkii, aabba qaraabadii, qof lagu sheegay ma jira? maya ilaa hooyaa waxa aa isku xiri lehed ma hooyadii hadday dhimatay qofku garab qabanayo oo kula raadinay ma lahan. hooyada markaa dhimanaysa meeqa jirta adi? markaas 6 jir iyo 7 jir la igu sheegay ada u yaraad sorry waa gartay. hooyada hooyadeed ma nooshahay? hooyadeed way dhimatay, mar hore dhimatay, laakiin walaalaheeda jooga oo nool. ma kuu sheegeen ciday ka yaqaanaa familka aabbaha? maya ma ii sheegin. maadaama 2 caruura hooyada ay u dhashay aabbaha see lagu weyn karaa is dhahda markay ku aqoon weyn karaan? wallaahi ma sheegi kari taas. waayahay guurka hooyada iyo aabbaha siduu ahaa ma lagu sheegay? ma aroos caadi u ahaa? ma guur hooso ayl uun ismeersadaan u ahaa? may maanta ka hor weligay afkayga ma kala qaadin oo waalidkayga iyo hooyadaysa isguurseen iyo xaaladda isguurseen meeshay isku mareen weligay sheekadooda ma dhexgelin. qof ii sheega ama la sheekaystana ma lahan. intaas caloosheeda la iska xinayd oo iska oon jira le waalidkayga oon jira ma ahan. waxaan hadda aan la sheekaystay on dhahay xaalad intay maraysaa isee waa ma jiraan. maalin markaa ii imaatay duruuftaada ii sheegtay waxaan ku dhaha baafinaa kuu sameynaynaa bilaa shuruud balanaa kuu sameynay. maalintaasoo dhan waa oyneysay, maanta markaa timid waa ilmeyneysay. dad fara badan aabood ka maqan ayaa jiro, laakiin adiga waxaa ii sheegtay inay jiraan xanuuno kuu gaar ah oo qalbigaaga rogay murjiyey. xanuunaas kuu gaara maxaa ka mid a? wallaahi waalid darrada le inuu waalidkayga maqan yahay le xanuunkaas igu hayso. rajadaada ka waran marka 27 sano kadib amba 20 sano kadib, maadaama 6 jir adigoo aabbaha kugu dambeysay, 21 sano kadib rajo intay leeg ayaa ka leedahay maadaama barnaamijka baafinta aad timid dib u helitaanka aabe walaal iyo familka intaba? waxaan ka rajeynaa inay ii imaadaan waalidkaygaan aan suganaa. waayahay meel hadda aad is leedahay waa ku tuhmeye oo alla ilaah aabba wuu jiraa ama familku way jiraan oo walaalka ma jirtaa? ada Ethiopia xaggeeda, dhanka Ethiopia xaggeeda inay jiraan oo malen. walaalkaa sheekadii iyo xog iyo waxaa ka maqashay iyo
wax ma ka maqlin isaga markaa iskaan dambeysay wuu yaraa cunug yar u ah markaa iskaan dambeysay marka xog kale aan kasii wareysto ama qof aan wareysto ma balahin labadiin yaa weyn aniga ka weyn magaciisa igu celi mar kale maxamed qadar maxamed qadar aabbaha magaciisa nagu celi faarax cumar xuseen oo ashraafa ah hooyadaana hooyadii dir hooyadaan diray ka tahay surre suro waa waayahay jaaliyadaha soomaaliyeed ee ashraaf gaar ahaan beesha af ashraaf dad fara badan ashraafaa naqaanaa oo xitaa nabadoonadooda ay kamid yihiin oo shariifku kamid yahay haddii aad daawanayso oona daawanayn waxaan ka codsanaa garabna ku siiyaan maxaad fariinu hawadu marsiin lahayd amba u sheegi lahayd si loo helo aabbaha hawada warsiina aabbaha in laygu xiro oo laygu soo raadiyo aan u sheega lambarkaagii sheeg furaha 9 sagaal 81 siddeetan iyo kow 80 siddeetan 52 konton iyo labo waxay dhahda furaha sagaal haye 81 haye 80 52 lambarka adigaa wato ah magacee kugu qoran magaciga ayaan faarax cumar ku qoran ayaan inaad baafin samaynayso oo xanuunkan iyo murugadan iyo qalbi taabadka ku hay aa ka hadlayso ma u sheegtay saygaaga oo fasax maku soo siiyey oo raalli makaaga yahay anagoo ognahay laakin waxaa dadka inay ogaadaan sababtoo gabar kasta baafin ka duubayno ilaa qofka mas-uulka ah uu soo fasaxo baafin kama duubno adiga waa noo sheegtay in raalli kaaga yahay wax kaloo intaa dheer oo aad jeclaan lahayd inaa noo sheegtay miyaa jiro marar qaar waxaa kusoo wacaya dad bayn ku sheegaayo tusaale waxaa lagu leeyahay aniga aabbaha meel ku og walaalka aan ahay lacag soo tuur intay ka baxday calool jilaaca faraha badan iyo halis ku gelin iska hubi qof aadan aqoonin oo aana kuu imaanin ha iska aadin lacagna uu kaa qaadan haddana maanta annaga soo kuma caawinsa ilahay dartiya waa maasante waxaan rabnaa marka inaan lagu sirin lagula gooynin been lagugu sameynin sharafkaaga meel looga dhicin taasna waa kaa codsan lahayn waayo dad fara badan inta la wacay been loo sheegay dad tuuga ay dhaceenaa jiro amba ay dhibaateeyeen oo dhan aabbahaa nahay amba hooyadaa nahay waxaan rajeynaynaa biidnillahi alkariim inaad noo soo laabato adigoo faraxsan oo helay walaalkaa insha allah niyaddana kheyr u sheeg insha allah hadda maanta waa murugootay waa oysay xoogaa waa nafisay culays makaa yareeno waxaa noo balna marka adigoo faraxsanna noo soo laabato waa mahadsan tahay adaa mudan guud ahaan muuqaalka inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo ilaahu noo rumee yoolka riyada rajada hadafka aan leenahay qalbiyo farxsan qoys midaysan aakhirajanno intaan dib kulmayna nabadgelyo ugu mahadsanta daawashadaada maalmihii ugu dambeeyey aan la maraa biyaha iska cabno haddi kadib biya waa joogsanaa ilaa hore shacbaanka qudhiisa maalmo fara badan ayaa ku jira hala soomo rasuulka sharafta mudan